islaan aan darisahayn baa hadda ka hor ii warrantay waxay tidhi islaan dheer oo quruxsan bay marka wadaad waxaa guursaday nin dadka muxuu ahaay barta yar ah waxay tidhi marka habeen annagoo dhaantaynayn gabdhaha iyo dhallinyarada iyo waagii hore dhaantaa loo bixi jiray bannaankaasaa lagu dhaantaya marka roobku doo barwaaqada annagoo dhaantaynayna ayuu waxay tidhi raggii gabdhuhuna dhinac bay ka soo jeesadaan ragguna dhinac bay ka jeesadaan markay dhaantaynayaan marka maaha dhaantadan hadda bidcada ee muusika lagu daray maaha dhaantada bidcada tii horaan ka hadlaya iyada oo dhaantaynaya iyo xagga ragga ka soo jeesaday bay tirti mise raggii markaan fiiriyey ninka ugu gaaban buu noqday hadhow markii dhaantadii laga baxay iyo guurigala hadlay bay tiri ma ninkii ragga meesha taagan ugu gaabnaa yaan guursan waan diiday bay tiri malaha qurjujaaf iyo balaaye iyo wadaad intuu u tegay wax soo xidhxidhay habeen dambaa la isugu yimi dhaantadii annagoo ku jirna ul uu watay unbuu itaabsiiyey bay tiri ninkii ragga ugu gaabnaa wuxuuba iila muuqday bay tiri nin raggii oo dhanba ka baxsanba isagaa ugu dheer khalaas sidii baan ku oggolaaday bay tiri sidii buu ku guursaday wuu ka ilmo dhalay marka tiwalada waxaa la yidhahdaa madiidaan annagu u naqaanaa madiidaa la yidhaahdaa waa nooc sixirka ka mida marka nebigu wuxuu leehy sal alla alay wasalam waa sixirka nooca loo yaqaano macnaha waa nooca loo yaqaano sixrulcatfi baa la yidhahdaa waa sixirka dadka laysku jeclaysiiyo midna dadka laysku necbaysiiyo waa laysku diraa marka saddexdaasba nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa shirki